asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinku tala galnay waa barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta waa maalinimo Arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 3 bisha Juun sanadka 2026 qodobada barnaamijka aynu ku soo gudbinayno dhamaantood waa wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa xalay wixii dhacay ilaa maanta waxa laga soo saaray weeraradii ay isdhaafsadeen Mareykanka iyo Iiraan dowladihii khaliijka gaar ahaan Kuwait oo lagu kala cararay airportkeeda caalamiga kadib markii gantaalo iyo drones lala dhacay diyaaradihii tagi jiray Kuwait oo laga weeciyay halkaas khaliijka oo khalkhal fara badan uu soo food saaray intaas oo dhan waxa uga sii daray Shiinaha oo ka hadlay xalay wixii dhacay digniina u diray dhinacyada haddaba muxuu sheegay Shiinaha oo Mareykanka walaaca badan ku abuuray iyana waxaan idin hayaa warar kale oo arrimaha ku saabsan Israa'iil oo qaatib billaahi wali ka taagan Droniski iyadoo la sheegay gantaalo cusub oo ay keentay inay maanta mar kale ku fashilmeen inay la diriraan oo ay dhulka soo dhigaan gantaalaha Xisbullah haddaba qodobadaas ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena ugu horeeya maanta barnaamijyada aanu idiin soo gudbin doono inta aan ku jirnana wixii akhbaar ay soo kordho waan idinla socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Suudaan, South Sudan, Tanzania iyo Turki qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladan waa online dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan waxaa intaasi dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya haddaba bulshada meel kastoo aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adinkuna ma tagtaan kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta oo ah maalinimo Arbaca taariikhduna ay tahay 3 bisha 6 sanadka 2026 wararkii soo kordhay intaynu kala maqnaynayna ku soo qaadanaynaa barnaamijka inagoo ku bilaabaynaa ilaa haddeer ayaa laga sheekeynayaa xalay wixii dhacay iyo duqaymihii la isdhaafsaday haddaba marka xalay maxaa dhacay siyaabo kala duwan wax looga qoray laakiin wararkii ugu dambeeyay markaan soo ururiyay xalay waxyaabaa dhacay waa la gacan qaaday si fiican mar kale la isku gacan qaaday waxaana la sheegay in Mareykanka jug culus la gaarsiiyay intaas waa xogta la helay laakiin nin kasta uu faanayaa nin kasta aniga saan laakiin warbaahinta qaar waxay leeyihiin xogihii ugu dambeeyay sheekadu markay cusub tahay markaas dhacdo iyo markay xoogaa joogto iyo markay xoogaa sii joogto warku waa la sii kala heli ogyahay faahfaahinta waa la sii heli ogyahay moogtay marka hadda waxay leeyihiin Iiraan waxay tiri markab Mareykanku ay yiraahdeen soo gudub oo Hormuz iska soo gudub cid kula hadlaysa male waxba ha bixinin iska dhaga tir waxa ay Iiraan samayn rabto aan aragne Iiraan waxay samayn rabto aan aragne maxaa Iiraan waa sheegtay markabkii anaga aan fasax naga qaadan oo digniin inta u dirno maqli waaye nagta ka saarayna Soomaali sheekadu marka halkaas ay joogtaa markabkii marka warkii Iiraaniyiintu u maqli waayay Iiraan marka waxay u dirtay dhowr drones u dirtay Mareykankii wuxuu isku dayay inuu markabkii difaaco halkaas horta baashu ka soo bilaabatay Mareykankuna waxay sidoo kale saacado ka hor weerareen markab Iiraan ay leedahay oo isaguna iska dhaga tiray Mareykanka joogsadiisu iska dhaga tiray isaguna waxbay ku dhufteen
sheekadu markay halkaa joogto marka waa la kala qabaa moogtay hal iyo hal waay markabkaas waa la celiyey kii Iiraan waa la celiyey nin kasta jugtiis buu qabaa Mareykanku marka waxay maalmahan barteen wax la yiraahdo annagu waa isdifaacaynay waxay weerareen marka jasiirad Hormuz ku taala oo Iiraan leedahay meel qalab isgaarsiin oo ku rakibnaa ayay weerareen alle sida Iiraan ay leedahay haddaba markaan idin soo warbixintan oo aad u faahfaahsan aan idin soo koobo iyadoo laga jawaabayo bartilmaameedka jasiiradda la yiraahdo Qasham Iiraan waxay sheegtay inay iyaduna garaacday oo ay bartilmaameedsatay markab iyo saldhigyo Mareykanka uu leeyahay marka Mareykankii waa soo kacay jasiiradii weeraray jasiiradii markuu weeraray ma ku raaxaystay weerarkii sidii markii hore meelo badan oo u duqeyn jiray ma u sameeyay waa la iska dhiciyay gantaalahan nagtaa laga saaray alaab cusub ay meel la soo baxday meel kala soo baxday lama yaqaan waa ka iraadita dhawan bixnaa way kulay sawir waxba ku riday waa la kala baxay isla markii alaabtoodu ayagu way cabaysan tahay mar horeena sheegeen gantaalay waxay ku garaaceen iyo drones laba saldhigay dukum daakum ka dhigeen laba saldhigo Kuwait ku yaala iyo saldhiga raxanta maraakiibta Mareykanka aliraada ee Bahrain saddexdaas meel ay weerareen maxay isugu dareen gantaalo iyo drones Mareykanka marka waxyaabaha la yaab kale warbaahintu waxyaabaha ay ka diiwaan galiyeen idin sheegay moogtay Mareykanka marka waxay yiraahdeen saldhigyadeena wax la gaarsiin male gantaalihii Iiraan ay soo riday Kuwait kulli waa qabsan hawada ku qarramsanay intii sameeyay soo gaaray Iiraan markay soo riday Ismaaciil nagta ka saarnay midaan ku dhignay dhagahooda waxba ka qaacay sheekadu marka warkaas leh Mareykan oo leh wixii ay soo tuureen hawada ku qabtay waa qarramsada kuwaan waxoodii wax kala ma haysa amal droneski waa cunay gantaalkii waa laqay maxaa kale haysa amal masaasaha iyadoo marka meeshu sheekadu noo joogto ayaa warka yimid marka Mareykanka marka maxay leeyihiin warbaahintu waa beenaale warkiisu cid aaminaysa ma jirtay leeyihiin haddaba marka warka yimid aan idin tusinayaa oo sheekadu waa isku xirantahay haddaba warkan marka waa warkan yimid waxa leeyahay waxa la soo weeraray airportka Kuwait ciidamada Mareykanka waxay sheegeen in kastoo ay fashiliyeen haddana waxa la garaacay airportkaas waxaana garaacday Iiraan hay-adda dhinaca duulimaadyada dalka Kuwait waxay sheegtay in dhisme ku yaala goob rakaabku ay ka baxaan airportka caalamiga ee Kuwait in la soo weeraray diyaarada drones iyo gantaalaha Iiraan waxaana la sheegay in weerarkaasu ay ka dhasheen dhaawacyo ayaa ka dhashaa la leeyahay waxaa soo kale khasaaro xoog leh oo soo gaaray airport waxaa degdeg loo wareejiyay shirkadihii diyaaradahu inay meelo kale ku degaan marka meeshaas marka wara ku jiray leeyahay nimanka wax falanqaynaya waxay leeyihiin Mareykan hawada ku qarramsan soo nama dhihin laba Kuwait ma jirta marka Kuwaitka Iiraan waxay tiri saldhigyada Mareykanka iyo meel kasto Mareykanka airportkana wuu joogaa Mareykan dhaawacyaa ka dhacay leedahay dawladda Kuwait burbura ka dhashay hay-adii diyaaradaha qaabilsaneed duulimaadyada diyaaradihii duulimaadyadooda waa laga wareejiyay waa halkii marka Kuwait ma Mareykan muxuu yiri waxaan waa beentood wixii hawada ku qarramsaday marka sheekadu markay halkaa joogto intaasoo dhan marka yaa hawada yaa warbaahinta qabsaday Shiinaha war kooban oo soo saaray oo fiirsada yaa warkan waa war yar laakiin miisaan weyn xambaarsan oo fariin gudbinaya marka maxay yiraahdeen weerar lagu qaado Iiraan cidii dani ugu jirta Mareykan haddaa ku laabato mar kale Iiraan weerar iyo dagaalkii ku ka gasho wax aad ka cunayso ilaahay abuurtay ma leh taagi wax la kala cunaa ma leh
nabadiina ama idiin roonta markii si loo fiiri marka waxay leeyihiin waa war iska normal caadiya oo fariin ah laakiin fariin maaha leeyahay fariin kala ku hoos jirta weyn Iiraan wax laga cunaa male diyaarad kasta hadaa ku soo weerarto alaabtii haystaan gantaalo way haystaan waa hubaa waa Iiraan waxba kama qaadaysa isku lugooyn saasa isku raacay gobolada haddaba markaa tuso marka telefishinka Al Jazeera oo arinta Shiinaha wax ka qoray waxa leeyahay Bakiin waxay sheegtay dib u soo cusboonaanta dagaalka Iiraan inaysan cidina maslaxad ugu jirin wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha waxay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay arintaas ka soo cusboonaanaysa bariga dhexe waxayna ugu baaqaysaa dhinacyada in dhinacna aysan maslaxadiisu ku jirin inuu dagaal ku qaado kan kale wax aad kala cunaysaan male leedahay Shiino u fiirsada marka waa message weyn wax ka qaadaysid male waa Mareykankii adduunkana ugu awood badan lahaa Shiino waxay leeyihiin Iiraan waxa ka cunaysid male waxa idiin roon ila asaas ku kala tagtaa kula marka waxay leeyihiin macnaha warku waa kooban yahay war wax ma kala cunaysaan kala taga wax ma kala cunaysaan kala taga marka la dhaha dawladda markii hore isku awood ahaa oo iska tacbaan ahaa oo diriray amal laga hadlaa mood laakiin hadda marka sidii isticmaashay ereygaas waxba ma kala cunaysaan kala taga leeyahay marka waxa la falanqeynaa waxa ma kala cunaysaan kala taga Mareykankii iswaalay wax ma ka qaadaysid waayay ma ka qaadaysid maxay meesha marka Shiino waxba ku ogyahay marka sheekadaasu iyaduna la socda waa wararka muhiimka ah ee soo dhacay waaye war kale oo isaguna aad muhiim ah oo soo kordhay ayaa jira oo aad u xiiso badan saakay wararkii cusbaa kamid ah shalay ilaa daraad waxaynu ka hadlaynay droniska Hezbollah oo Israa'iil nagta ka saaray baabi'iyay ciidankoodu ka qayliyeen alaabtan baasuuka wadato waa laga qayliyay ayada marka dhowr nooc leh midna qoryaha inta lagu soo rakabo baanbooyin lagu soo qaaday kugu soo daadinay abaabiil iyo magacyadaas ay qabaan alaabtaas oo la baxeen Israa'iil marka warbaahinteedu waxa laga soo helay baatay leeyihiin intaasoo dawladooda isku soo martay Israa'iil war droniska waxaan isaga celiyay ma haysaa mid gantaal soo siiya way ku tijaabisaa waxba kama qaaday mid wuxuu soo siiyaa laser baal yaro laser soo ridaya leeyahay waxa uu ka qaadaa bale sirtii marka dhibo kale inay daaleen ayaga tabartooda xataa ahayn oo adduunka dhan cid kastoo wax farsamaysan inta soo martay waxba ka qaadi waayay droniska ayaa hadda soo baxay haddaba marka aad tuso warbixinta marka ceebta taagan ayaa la leeyahay haddaba Al Jazeera waxay qoraysaa waxay leedahay wargeyska la yiraahdo Wala ee Israa'iil ka soo baxa wuxuu sheegayaa in isku dayo badan oo lagu sameeyay hanaan looga hortago diyaaradaha droniska Lebanon oo macnaha Hezbollah ay soo ridaysay inay noqdeen kuwa aan waxba tarin haddaba waxaa la sheegayaa warbaahinta Israa'iil ay sheegayaan in 50% kaliya ay qaarkood wax tareen laakiin koodka kale waa la celinayaa wali waana diyaaradaha yaryarka ah wargeyska Wala la leeyahay wuxuu sheegay in nidaamkan diyaaradaha loo isticmaalayo si kastoo la yeelay mid la dirira diyaaradaha inta la keenay waxba laga qaadi waayo 50% macnaha 50% kaliya ayaa qaar ay shaqeeyeen diyaaradaas yarta baasuuka wadata marna qoriga boobaha ku xiran yahay naftay u keen ma la maqlaayo dheer xataa waxyaabaha kale oo la yaab kale moogtahay aan rabayna aan soo akhriyay show diyaaradaas dhibka ay leedahay ma la maqlaayo xataa guuxeeda ma jiro baasho kuwa kale guuxay leeyihiin droniska kale waa la maqlaa qaylay leeyihiin tan maba la maqlaayo ayadoo ku dul taagan ayadoo dariishada kaaga soo baxday ayadoo halka taagan arkay bis ninka baashan hogaaminayna ma joogo buur wuxuu ku jiraa dhulka hoostiisa oo Lebanon ku taalo ku jira
wax kastee sameeyeen le marka maanta yaa ka shifay wargeyskooda la yiraahdo waala wuxuu leeyahay wax kastee sameeyeen boqolkiiba konton waa dhaafsi waaye waxba waa laga qaban waaye diyaaradii boqolkiiba konton macnaha haaf haddii 10 la soo diro 5 camal la diriiri kartaa 5 kale waa xarooto waaye warka waa nisbe aad u badan oo khasaare gaarsiin karta waa le marka sheekada iyaduna halkaas maraysa haddaba marka waxaynu ku yaraha kaleena qadar yar oo xayisiisa kadibna waxaan eegaynaa wixii warar soo kordha متعشى برشاد القرآن الكريم يا علوم الشريعة هبع عصرية أونلاين أديكو جوجو كوريجا أما قوبت على شقة مركز دار التقوى وحكومة بري القرآن هبع عصرية أونلاين ما دون كتب كرتو حكم ذا قرآن الكريم إكادة لغة عربية إيو علوم الشريعة استوى قلت وايد سعودها فضلا هروكان وهي فاهينك الحديد من برض الشاشة كان المغضى هموكان دوكسيجا مركز دار التقوى توركسن meel kasto aad joogtaan asxaabay ku soo dhawaada barnaamijkeeni ugu horeeyay maanta Arbaca qaybii ugu dambeeyay barnaamijka ayaynu markan maraynaa hadaba qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa maxaa soo kordhay sheeko la yaab loo cajiib ah soo kordhay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxay ku celcelinaysaa ciyaartooyda Iiraan ee ka qayb galaya koobka adduunka cidii aan ku helno inay xiriir la leedahay ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan wadankeena ma soo galayaan xiriirkii kubadda cagta Iiraan marka muxuu leeyahay FIFA wuxuu leeyahay war dadkan askar miya banooni ee dheelaan banooni ee marmarsiyo Iiraan lagu cadaawadeeya meesha ka socota baashan adika qaban qaabinayeen annagu tinno ka dhibka ma naga dhaafay awalna way ka soo daahiyeen fiisa markaas waxay leedahay waxa tagtaan safaaradda Mareykanku ku leeyahay Ankara taga oo Turkiga taga meesha fiisa u doontay waa la soo rafaadiyeen nimanka haddana maxay leedahay marmarsiyo ay cidday rabto ugu dhigto cidaan uga shakino kula ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan hadalkaas waliba waxa dhaha wasiirkii Rubio mid kale leeyahay wax la yaab la soma banooniga nimanka dheelahay wuxuu leeyahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ninkii xiriir la leh marka meesha dhibaato badan ku jirta le fiirsada meesha waxa ku jira points muhiim ah inaad fahamtaan Iiraaniyiinta inta badan askari maraan wadamo badan aan jira taas oo macnaha anaga waa lahan jirnay dawladii kacaanka markay jirtay waxa la yiraahdaa shaqo qaran ah jir qofka laba baartay loo soo sameeyo tababar oo la soo tababarayo shaqada qaranka maartay sida qoryaha loo rido waxaas dawladaha kale way lahan jireen Iiraaniyiintu way leeyihiin marka ninkii asagoo dugsi sare ka baxay oo tababar soo galay ka war adduunka dhan ka jirta xataa waxaan xusuustaa nin ciyaartooy ah oo Korean ah oo kooxda Tottenham u ciyaari jiray mara waxa la yiri waxa laga rabaa inaad qaybtii militariga ma waxa kaaga dhinaa 10 qaadato kadib marka kooxdii Tottenham intuu ka tagay ayuu soo dhameystay 10 marka wadamada qaar waaba khasab kuwa dagaalka ku jiro cadaawada leh Korea marka koonfureed waay Koreada waqooyiga jeega xilka isnacibiin marka nin kasta waa inuu tababar qaataa marka Iiraan waa saasoo kale cadawgeedii badan marka qofku inuu tababar soo qaatay marka waxay leeyihiin annagu hadda xataa tababar qaadanay wadankeena sharcigiisa waa maxaa tababar ugu qaadatay xiro ciidanka ilaalada kacaanku ay leeyihiin maxas warmiya FIFA iyo marka waxa isku dhagan inooki Mareykanka wareera meesha ka taagan haddaba marka wararkaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijkaygii ugu horeeyay haddii alla idmo wixii warar soo dhaca